soo dhawaada asxaabta dhammaanteen waxaynu jecelnahay safarka iyo inaan booqanno wadamada kale si aan u helno dhiiranaan iyo aqoon cusub qof walbana si ayuu jecel yahay marka wadan kale la tago kuwa waxay waqtigooda ku bixiyaan cuntooyinka wadankaas halka kuwa kalena ay booqdaan goobaha taariikhiga ah haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaar ka mid ah meelaha ugu halista badan ee loo dalxiis tago oo aad aadi karto hadda laakiin waxaan kugula talinaynaa inaad ka fikirtid intaadan aadin adigoo daawanaya muuqaalkan haddii aad ku cusub tahana channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ku soo dhawow shirkadda adeegyada tiknoolajiyadda ee Yoltech waxaa hadda si fudud ugu soo wareegi kartaa web hostingka Yoltech iyadoona dhammaan xogta website-kaaga iyo emailadaada lagugu soo wareejin doono si bilaash ah ka mid noqo kumanaanka macaamiil ee ku faraxsan adeegeena wixii faahfaahin dheeraad ah nagala soo xiriir nambarada ku muuqda iyo emailka Yoltech u helan macaamiisheeda wadada buurta Khua wadadan waa mid ay ka cabsadaan dadka dhirirkeeda iyo meesha ay marto oo aan ahayn mid dheelitiran waxayna ka mid tahay wadooyinka ugu halista badan adduunka taasi oo loogu yeero wadadii dhimashada waxayna leedahay soo jiidasho inta ay joogaan dalxiisayaasha buurtan Khua waa mid aad khatar u ah maxaa yeelay buurtan waxa ay leedahay meelo halis ah oo uu qofku ka soo dhici karo luqadda Chinese-kana Khua micnaheedu waa buurta ubaxa waana mid ka mid ah kuwa ugu dheer dalxiisayaal badan oo Chinese ah ayaana yimaada waxa ayna leedahay meelo la maro oo ciriiri ah qatartooduna badan tahay sanad kasta waxaa yimaada dalxiisayaal aad u badan iyadoona u ah meel ay ku cibaadaystaan sanad kastana waxaa ka soo dhaca buurtan boqolaal qof oo dalxiisayaal ah kuwaasi oo u geeriyooda haddii aad fiirsid waxay ka samaysan tahay ma ahan mid aad naftaada ku aamini karto xeebta Fish Hawk qaar ka mid ah meelaha loo dalxiis tago ee adduunka ma ahan kuwa ammaan ah halka wadamada qaarna badanaa badahoodu ay ku nool yihiin xayawaanada dilayaasha ah tusaale South Africa magaalada Cape Town waa meesha ugu badan ee libaax-badeedku ku soo weeraro dadka dalxiisayaasha ah walina waa kuwa aada dadka dalxiisayaasha ah xeebtan waana xeebta biyaheedu ay ka buuxaan libaax-badeed halis ah waxaana la isku dayay in loo dhigo libaax-badeed ka shamaag si looga hortago halistiisa mana ahan mid ay celin karto shamaag sidoo kale waxay isticmaalaan qalab alarmi ah si uu uga cabsado dalxiisayaashana ma ahan kuwa ka badbaada had iyo jeer oo waxaa soo weeraray libaax-badeed dadka degan Cape Town waxay dhibaato ku qabaan libaaxa ku soo badanaya xeebta inkastoo waagii hore uu ahaa mid dhif ah oo soo weerari jiray dad yar hase yeeshee sanadihii dambe waxaa soo batay khatarta xeebaha adduunka oo dhan saynisyahano ayaa aaminsan khatarta xeebaha in ay sababtay isbeddelka cimilada adduunka waxayna sheegeen in ay badda ku jiraan xayawaano dilaa ah sida libaax-badeedka lamana oga sida ay mustaqbalka ahaan doonaan Javi Burger godkan waa mid aad u dheer oo ciriiri ah waxa uu ku yaalaa Faransa dhirirkiisu waxa uu gaarayaa 1200 oo mitir waqti dheer ayuu ahaa midka ugu dheer adduunka halka khubarada dhulka ay ka soo heleen meel u dhow god sidiisa oo kale aad u dheer godkan waa mid ka mid ah kuwa ugu khatarta badan adduunka tan kale waa mid duma xilliyada roobka uu da'ayo iyo markii webigu daadad ku soo fataho waxa uuna qaataa saacado badan in la galo iyo in laga soo baxo intaba waana sababta ay dadka qaar u yimaadaan godkan dhimashada muddo 60 sano ka hor ayaa daraasad laga sameeyay waxaana ku geeriyooday cilmi baarayaal kala duwan tan kale godkan waa mid fatahaad sameeya mana ahan mid la ogaan karo marka uu sameynayo fatahaadda marka dalxiisayaasha waxaa lagula taliyaa in ay qaataan doon yar maxaa yeelay qaybo ka mid ah godkan ayaa gabi ahaantoodaba biyo ka buuxaan Uyuni Salty Flat haradan waa mid aan caadi ahayn una muuqata mid qalalan gabi ahaanteeda waana harada leh qabow aad u daran oo baraf ah sidoo kale haradan waa mid leh cusbo aad u badan waxaana loo tixgeliyay in ay ka mid tahay kuwa ugu weyn adduunka waxayna gaaraysaa badka ay ku fadhiso 10,000 oo kilomitir square waxayna ku taallaa koonfur galbeed waddanka Bolivia ee Latin America waxaana u dhow magaalada Uyuni City meelaha qaar ayaa leh dhagxaan cusbo ah oo hoos u gaaraya ilaa 10 mitir tan la yaab kale ayaa ah inta lagu guda jiro sanadka in ay isbedesho haradan qaabka ay u eg tahay
tusaale xilli roobaadka waxa ay noqotaa wada biyo, cusbaduna hoos ayay aadaa, waxayna u eg tahay sida miyaaradii. sidoo kale waxa ay yeelataa kalarkan cirka oo kale ah, waana meel dhulka aad uga sareysa, inta badan dadku way ku xanuunsadaan. goobtan waxaa si joogto ah uga dhaca shilalka baabuurta. darawallada haddii ay dayacaan shuruucda baabuurta lagu wada halkan, shil ayay ku galayaan, marka waa in ay ka taxadaraan xawaaraha gaariga iyo xirashada suunka. sanadadii u dambeeyay dalxiisayaal badan oo ajaanib ah ayaa ku geeriyooday shilalka baabuurta ee halkan. Villarrica Volcano. goobtan waa mid ay volcano ka qaraxdo, waxa ayna ku taalaa koonfurta Amerika, gaar ahaan waddanka Chile. volcanadii u dambeysay waxa ay dhacday sanadii 2015 bishii March, taasi oo qaraxeedu uu kor u gaarayay 1 kilomitir. waana mid ka mid ah volcanooyinka halista ah. saynisyahano badan oo ku sameeyay baaritaano kala duwan ayaa sheegay in goobtan heerkulkeedu zaa'id noqday, ciidii ku hareereysneed oo dhanna way dhalaashay. waxayna isku raaceen volcanada xigta midaan in aan la qiyaasi karin cabirkeeda. sidaasi oo ay tahay, sanad kasta waxaa taga boqolaal dalxiisayaal ah iyaga oo daawanaya meesha ay volcanadu ka kacday. waxa ayna sameeyaan inta ay helicopter qaataan ay dusha sare ka daawadaan volcanada. Lake Nyos waa mid ka mid ah haraha ugu khatarta badan adduunka, mana ahan mid daadad fatahda ama ay ku nool yihiin xayawaanada dilaaga ah ee waxaa ka kaca volcano iyada oo sii deysa gaas sun ah. waxayna ku taalaa Cameroon. haradan waa mid sii deysa carbon dioxide ilaa sanadii 1980, mana aysan sababin wax dhibaato ah, kaliya waxa ay sii deysay gaas yar, wax dhibaato ahna kuma keenin bulshadii ku nooleed agagaarkeeda. laakiin sanadii 1986 ayaa xaaladii si dhaqsi ah isku bedeshay, waxayna soo deysay gaas aad u badan oo ay la socoto sun, waxaana ku geeriyooday dad gaaraya boqolaal iyo xayawaano. baaritaan ay ku sameeyeen khubaro ayaa uga digay dalxiisayaasha in ay tagaan goobtaas. South Luangwa National Park. beertan xayawaanada waa meesha ugu weyn uguna halista badan qaaradda Afrika, waxayna ku taalaa masaafo u jirta 250 kilomitir caasimadda Lusaka ee Zambia. waxaana ku nool meeshaasi ama ay hoy u tahay daanyeero iyo xayawaano kale oo kala duwan. marka in lagu lugayo meeshan waa arrin halis ah, sababtoo ah waxaa jooga xayawaano dilaa ah. intii aad ku lugayn lahayd waxaa ka wanaagsan inaad gaari ku martid. xitaa gaariga ma ahan mid damaanad ku siinaya waqti kasta in aysan ku soo weerarin xayawaanada, oo xilli walba ayay ku soo weerari karaan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahana channelka maanta subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan. mahadsanidin.